الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وولاشين جوار حسين halkan nagala socotaan waa channelkeena Jawaar Xuseen inoo maamusha xarjina ina caafimaad qabtaan sida aniga aan caafimaad qabo. Allah subhanahu wa ta'ala caafimaadka inoo ziyaadiyo. Allah subhanahu wa ta'ala qof walba muraadkiisa macsileen ha siiyo. Allahumma aamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. inta hadda banaanka imaaday markuu waxaas dhahay mar hadii aad wax sameys gashid waxa caajisaysaa in video duubtid marka sidaas darteeda hadda anigoo banaanka ka imaaday video soo hor fadhiistay marka Allah musta'an aad u mahadsantihiin ilaahay subhanahu wa ta'ala in khayrkan waafajiyo in ay soo weydiiseen in xaalkayga caafimaadkii aan waa fiicanahay waxa hergab ka ahayn ma haysti ma qabi hergab kaliya kaasna waa laga boodaa in sha Allah biyoodka iyo meesha ugu cusub iyo waxaas waaye marka in sha Allah ka bixi doona haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka noqdo runtii ma isla runtii dad badan oo ku yaqaano isla meesha tago aba jooyada YouTube ma tahay saa u xishooda le Allahu akbar wallahi masar waa ka gamban jiray dadka marka oo maxay radaa aba gabadha YouTube ma tahay markii la dhaho hadda inta إلى wax meel walba waxa adii aadtaan waaye cunugaaga wax u dirsanaysa ma jiro walaalkaaga wax u dirsanaysa ma jiro xaajiga wax u dirsanaysa ma jirto adiga waaye wax walba adiga soo qabsanay markaas ah bismillaahir rahmaanir rahiim showdadaaba iyo qaanaba ajiib ma jecel YouTube aata ku nacay alxamdulillah in maanta khayr leeyagu tabaayo gabadha oo digriga soo deysay ma tahay la dhahay alxamdulillah ilaahay subhanahu wa ta'ala ba mahad iyo shukr u sugnaatay marka horta alxamdulillah magaaladan maanta baraf ma lahan inkastoo magaalooyinka kale dhan baraf ka bilowday inkastoo oo xaalka ilaahay subhanahu wa ta'ala og yahay reer America barasho wanaagsan horta reer America barasho wanaagsan dad yar oo qalbi wanaagsan oo qalbi xabxab way joogan runtii qof walba wax buu tabanaya qof walba meel uu ka cabaadaya qof walba ilaahay subhanahu wa ta'ala dib uusan idin gelinin adinka lugihiina isku ku doorateen ilaahay idin gelina adinka gasheen runtii markaani waxyaabo badan marka u fiirsaday waxyaabo badan horta dadkeena Soomaaliyeed aad waxyaabo badan aan naga khaldan waan rajaynaa yani insha Allah ilaahay idinkiisa idinkeena ahaan haduu ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka noqdo dadku wax u sheeg dadka wacdi dadka saanyeel ani maxaa iraada si maanta wax lagu wacdi ma aqaanabo wax dadku wax loogu sheego ma aqaan dad intaas oo sano qurbo ku noolaa oo wadaca mise sida qurbaha ay u taala fahamsan ani wax ma u sheegi kari waxna igama maqlaayaan dabcan qof walba noloshiisa sax uu ka dhigtay qof walba noloshiisa la saxsan qof walba wuxuu sameeynaa way la saxsan tahay marka qof wax la saxsan ani waxa ka bedeli kara ma jirto ilaa qofkan ama qoftan in ay ayada go'aan gaarto in nolosheeda wax ka bedesho in ayada nolosheeda Allah musta'an ay noqoto Allah musta'an u soo jeesato waxa ka bedeli karo Ilaahay subhanahu wa ta'ala abuurtay ma jirto marka Allah musta'an an waligeyba maxay raada gabdhaheena wacanaanan jiray nimankeena wacanaanan jiray waligeyba ano qisooyin wada hadana soo dhaxgashan jiray ma fahamteen marka Allah musta'an runtii nolosha marka meeshaan taala aan waxba kama bedeli karo waxna kuma soo kordhin karo waxna kama naaqusin karo waxna kama dhimi karo because dadka nolosheeda ayaga sameystay ayaga sidaas ka dhigtay runtii Soomaaliya siiba dumarka anigu marka la isoo sheego qiso ama qof ila wadaagto mise caruur laga qaatay mise saasa jirto ninkii ayaga xumaaday ninkii asaas ii dhibo ninkii almuhim waa iska ogaa in meeshaas wax ay ka jiraan meeshaas wax ay jiraan runtii gabadha markuu ninka qabo ninkeeda haduu biil siinayo ninkeeda biilka uu gol yahay meeshan ayadaysan ba ahaynba meel ninnaag qabnaa kale uusan shukaansan karin laga yaabo inuu Afrika ka shukaansado laga yaabo inuu meelahaas kale ka shukaansado laakiin macdaalika maadaama adiga ugu qoran tahay alxamdulillah baawra haysataa caruura u haysaa laakiin baawrka haysatid ma ahan in aad kaga faa'iideysatid in aad u sheegatid xoog in nolosha kaga adag tahay waxaan adduunyo waaye runtii lacagtaas yarta ah oo dawladdu ku siinayso oo ku caawinaysid qabiil wallahi qof bili aadan shaqsi naf lacaga bixisay lagu dilay
والله الدنيا آخر دوشي كاسارن تهي الدنيا آخر دمرو دوشي إذن كسارن تهي ما فهميسين وغاو سوال بأوناكسن تهي سوال بأوناكسن تهي لكن قبيالة دا ساس وفونغرينيسيد قبيالة دا ساس دا وفونغرينيسيد والله adiga un meel un balaga imtixaama ninkii aa wax kugu noqona wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala ogahay caruurtii kugu soo jeesanayso number 1 adiga caruurta ku qaadanaya lacag in diinteena islaamka raali ka ahayn oo abahooda joogo oo maxay raadaasi yani wax badan arkay meeshan almuhim waasna qaana Ilaahay subhanahu wa ta'ala qeyrkan waafajiyo xaqaha ituso dumarow waxa adinka saas u rafaaqateen saas waxa u qasateen boo Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinka jaraaya saas waxa u rafaadateen warheeda adduunkan laba maalmood waa laga tagaya ama isqaban karnaa ama nafteen la xisaabtami karnaa ama isku noqon karnaa taas anagay dan noo tahay ama isku noqon karnaa taas anagay dan noo tahay anagay dan noo tahay shilinka yarka ah lagu siinaayo hada ninkaaga banaanka asaga saarsid shilinka yarka ah lagu siinaayo hada uu leedahay ilmaha aabahood waa kala tagnay shilinka yarka maxay raadaas lagu siinaayo hadii ilmahaas maxay noqon karaan ubadkaas maxay kugu noqon karaan ma ku noqon karaan ubad diinta islaamka maxay radaa ku taagan oo maxay radaa hadalkaaga maqlaayo oo maxay radaa waalidka adeecinay ku noqonaa may kula tahay never hasugin warheeda Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsada wallahi sida u dhaqmaysan si maahan adduun iyo aakhira kala badan adduunya aakhira lacagta sax marka la soo bixinayo dollar waay macaan aad u macaan badan tahay laakiin meeshay ka imaado mis weydiisay sida uu isticmaashay si sax ma tahay حتى هاد صح haday tahay sadaqa aad ku bixinaysid waxa aad ku qabanaysid waxa siinaysid talo siday ku imaado sax ma kula tahay maahan no abadan hada dumarkeena Soomaaliyeed maanta ma arkin qof oo $20,000 $15,000 maxaa la 5 sano 10 sano 15 sano 20 sano ashaqo lagu daalaya maanta $5,000 qof meel ii taala dhehaysa ma arkaysid aaway xagee ku baxday ubadkaaga akoon bangi ma samaysatay never abadan ma arkaysid abadan qof walba abrisid ani markaa waa iska afdheeray waxaan leeyahay waxa ma samaysatay akoon wax oo safe ku leeyahay ma yanta maxay reer Afrika masaakiinta waa la iska nabaale waxa reer Afrika ku maqan reer Afrika si sax ugu maqno way ku maqan tahay laakiin si sax ugu maqno waxa $20,000 waxa lagu sameeynaa baadi ma la horta ma aqaanin ma barta aan laftigii baadi meel xaflad la isugu imaanay maanta fiiri waxana haysto musiibada dadkeena haysata fiiri biyihii waxa uu taagan yahay ilaa ay garku taagan yahay kabaran lacagtaas oo maalayacniga meelaha lagu bixiyo lacagtaas maalayacniga waxa lagu sameeyo lacagta maalayacniga dad oo qabiil lagu foongareeyo kabaran Soomaali meeshii markaas hatta qabiilka hadii la isku aruuriyo laakiin wax wanaagsan lagu sameeyo maxay dhibaysaa maanta rooba jiqnahay biri abaara dhacayso biyihii maanta intaas dadku u taagan biri waa la weynaya warheeda ninka ma aragteen odayga waa yeelka ah oo saddex caruur iyo hooyadooda ka maqano meel uusan ku ogeyn bal ka waran musiibadaas lacagtana diri maala yani asas u bixinaysa wax naftaadan wax ugu ma qabanaysid dadka masaakiintan wax ugu ma qabanaysid dad aan kaaga baahneen oo maxay rada faanj heblaaya soo dirtay ama maxay rada heblaaya ka timid darteeda intaas u sameynaysa wallahi waxba idima tarayso هذه هي الدنيا adduunka ama America joog ama maxay raadaasi Masar joog waa soo raal ahaadina Masar soo qaad Masar waa xabiibtii way dabcan ama maxay raadaasi Saudi joog ama maxay raadaasi Soomaali joog adduunka meel baa joogto Ilaahay subhanahu wa ta'ala ardadiisa way u siman tahay meel baa joogto Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu ku xisaaban ama baawr isku yeel ama isliid ama maxay raadaasi waxa baalal yeelo ama maxay raadaasi Ilaahay waa ku roon yahay cagaha iska jar Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu ku xisaaban ogow dibka jira wuxuu yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala meel ka imtixaamaya ninkiya lid kugu noqonay inta ku galay ma ubadkiya inta ku galay waxa soo dhan ma u fiirsanaysaan waa imtixaan adinka gacantiina ku kasbateen hal tadru moogtiin taas imtixaan gacantiina ku kasbateen waay
imtixaana gacantiina ku kasbateen waaye warheedha ubadka waxay maskax ku yeelanayaan maskaxdeeda fresh ay ku noqonaysaa waalidkoo wada jiro mashaakilkooda si hoose u xalista maxay radaa si wax walba si tartiib ku xalista ubadka ana arkin waalidkooda dhul gaala ku nooshihiin ubadkiina inay u danaysaan waa muhiim Soomaaliya ana waa isnaqaanaa 6 7 8 dhaleena qurbo wadan ilaahay og yahay ku dhaleena oo iskuulkeena geysid ان kasoo qaadid maxay ama baska markuu qaada meesha u taagnaatid baska markuu soo dejinay meesha u taagnaatid ama adi aa qaadid waxaas oo dhan subaxii dharkeena ka jikintid wax walba mas'uuliyad adinka idin saaran waay maanta 15 jirka iyo 16 jirka qorbaha ku nool 5 jirka Soomaali ku nool ka caqli badan ka caaqilsan maanta dharkii 5 jirka Soomaali dharkiis waa loo geliyaa 5 jirka Soomaali surwaalkiisa soo gashtaa 5 jirka Soomaali joogo maxay radaasi kabihiisa xirtaa laakiin 15 jir maanta qurba joogo waa loo labisaa 15 jir qurba joogo waa loo labisaa kabaha laga jikama ma fahamteen marka adinkoo dhibkaas dhan maraayo oo maasha Allah ilaahay idin deystay 7 6 8 oo haysta ka warram hadii imtixaana isku sii furtaan problema isku furtaan oo ubadkaas ka kala habaabaan warheede sida ma nolosheen sidaan ama ina u dhaana ama danteena ku jirtaa ama danteena ku jirtaa inay sidaan u dhaano ogow aakhire intaan la gaarin tan daarul dunya alagu imtixaama inta daarul aakhira la gaarin hada imtixaanka daarul dunya oo noqdo ubadkii inta ku galaa ninkii inta ku galaa ninkii wuxuu kugu noqonaa adiga maala yaani ninka ku maxay radaasi in ku haysanaysa adiga maala yaani ninka guriga ugu saaraysa adiga maala yaani ninka booliis ugu wacaysa intaasoo dhan iqtibaar waa imtixaan wax caadi maahan waa imtixaan rabbaani ilaahi subhanahu wa ta'ala xaqiisa kaaga imaaday jooji waxa ku socotid naftaada iyo gurigaaga iyo caruurtaada iyo maxay radaasi iyo zoojkaaga ninkaaga waxa si waqti si nimanka runtii walaahi meeshan joogo runtii hadda markaa u fiirsaday xaalkooda ilaahi subhanahu wa ta'ala waa dad ka muuqato bazaarad wadad ka muuqato rag meeshan joogo dad ka muuqato maxay radaasi ayaga dhan shakligooda nooc kala ah waxaas leedahay qofkan guri kama soo toosin miya xaalkooda dhan ilaahay subhanahu wa ta'ala baa reed sidaas ma sidana isku dhaano rag iyo dumaro aan iskaashano ubadka dartiisa hala isku kaashado maxaa nolosheena sidaan ka dhigay gabdhihii wada garoobo cunuga la jiidaya ninkii meel kale u degay ama naag kale u qaba maxaa waay sidaas noloshaas maxay tahay anagu meesha aan ku hayno maxay tahay noloshaas aan meeshaan ku hayno sidaas aan isku dhaano aan dad iska dhigno dad islaam oo ilaahay subhanahu wa ta'ala naga dhigay dad oo ilaahay subhanahu wa ta'ala diin ku dhalay ka ab anagoo na doornay ilaahay subhanahu wa ta'ala diin al-islaam na siiyay واي الدينتين ugu dhaqmi laanahay ilaahay subhanahu wa ta'ala qofkii wadadiisa saxda qaado wallahi ma habaabo ilaahay subhanahu wa ta'ala wadadu amr qofkii qaaday ma habaabo adduunyo aqrin ilaahay dib ma tuso runtii hadii qof taabatayna wallahi qof adaag kuma ihi ilaahay subhanahu wa ta'ala khayrkan waafajiyo ilaahay amuraha inoo saqiro aamin ya rabbil alamin walaashin jawaar xuseen oo maanta hay'ado banaanka imaada video dhac idin ku soo siisay fahanteen marka ku qaata walaashiina khayr allahna waafajiyo khayrka allahna waafajiyo aan isku soo duceyno insha Allah intaan u bataysan ubad baari Allah siiyo inta ubadka ka maqan Allah subhanahu wa ta'ala ha u soo sahlo inta ninka ka xun Allah subhanahu wa ta'ala ha u soo toosiyo inta naaka xaasaska ka xun Allah subhanahu wa ta'ala ha u soo toosiyo inta guur haysanin guur wanaagsan ay ku farxaan rabbi subhanahu wa ta'ala ha siiyo guriheena Soomaaliyeed ilaahay subhanahu wa ta'ala biyo baraf leh ka dhax dureeriyo waayo guriga naxariisa qaboojiso ilaahay naxariis gurigeena ha ku soo dajiyo aamin ya rabbil alamin walaashin jawaar xuseen oo idin la ku soo dhawaada channelkeena subscribe saara asxaabtiin la wadaaga wixii ra'yigiina commentiga noo reeba like tin dhiirgelin oo tay like na saara khayr iyo caafimaad iyo barwaaqo idin rajayna assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh